أزهو وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة قيمة بدنو كسلو كان إبراهيم البلوي وعشركي لحاد برشة كمبيوترك waxaad u baahnaan doontaa mararka qaar inaad dhowr barnaamij wada adeegsato balse uu markiiba hal barnaamij jaashad ku saarnaado si aad diiradda u saarto howsha barnaamijkaas. sidaa darteed waxaad u baahnaan doontaa farsamo dhisaa kala gudubta barnaamijyadaas oo intaad si deg deg ugu baxdo barnaamijkan mid kale u aado haddana u soo laabato kii hore adigoo aadan xirin midkii aad kasoo tagtay. sida haddeer ujeedaba 3 barnaamij ayaa ii furan 1 2 iyo 3. si aad u aragto barnaamijyada ku furan oo hoos yaalo oo idil batankan loo yaqaano task view ay taabanaysaa. waa kuwan 3 barnaamij ayaa furan 1 2 3. midka aad doonto ayaa ka xulin kartaa haddeer adigoo mouse soo jiidaya kaligna siinaya midka aad doonto. amantaa keyboardka fallaarta midig bidix taabato midka aad doonto markaad gaarto ayaa batanka enter ee keyboardka taabanaysa. barnaamijka aad xulatay ayaa ku soo baxaya markiiba balse sidaan ku soo sheegayba howlaha kombiyuutarka aad ka qabanayso waxay leeyihiin shortcut oo muddo dhow ee loo maro. shortcutka task view-ga ama muddada dhow ee loo maro waa 2 nooc. waa mid waa inaad isla qabato batanada keyboardka starta batanka ee batanka la yiraahdo tab ee labada falaar labada dhan u kala jeeda leh. kadibna barnaamijka aad doonto falaaraha keyboardku raadi oo enter leh si aad mid ka mid ah barnaamijyadaas una adeegsato. waa mid labaad inaad taabato batanka alt adigoo haya inaad si taabato batanka tab kuna celiso batanka tab si aad u xulato barnaamijka aad doonto. marka aad dul tagto barnaamijka aad doonto sidii labada batan ee aad haysay tabka iyo alt-ga. sidaasna waxaa kugu furmay barnaamijka aad doonto. aan ku soo koobo sida fudud marka aad doonto inaad barnaamij dhowr ah isaga kala gudubto oo midba mar adeegsato isla taabo batanada la yiraahdo start batanka iyo tab fallaaraha keyboardka midig bidix ka xulo midka aad doonto adeegsigiisa internet